بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada walaalayaal aruntiina maantay waxa aan ka hadlaynaa dhiigga noocyadiisa maxay tahay sababta aan ugu kala duwannahay noocyada dhiigga aan isla fiirino jirka aadanaha waxa ku jiro qulqul dhiig ah qulqulkaas dhiigga ah jirkeena la'aantiisa ma shaqayn karo sababtoo ah qulqulkaas waxa ay qabtaan in ay oksijiinta ama neefta aan neefsanayna ay gaarsiiyaan unugyada jirka ilaa ay meelaha ugu hooseeya darfaha cidiyaha ilaa cidiyaha suulasha timaha guud ahaan waxa jirkeena oksijiinta gaarsiiyo waa dhiigga jirkeena ku jiro sidoo kale cunnada aan cunno waxa ay tagtaa caloosha la shiido waxay u baahan tahay wax qaado ee u qaybiyo jirka aadanaha ama jirkeena u qaybiya marka dhiigga sidoo kale waa qaybiyaha cunnada iyo oksijiinta wuxuu kaloo jirka ka soo saaraa wasaqda ama carbon dioxide waxa kaloo jiro in hormoono oo jirkeena soo daayo dhiigga waxa uu ka qayb qaataa in hormoonadaasi la geeyo meelihii ay u socdeen caadi ahaan dhiiggeena waxa laga rabaa in uu ahaado ama dhiigga jirkeena ku jirto waxa laga rabaa qadar dhan in uu ahaado ama volume 5 litir ah haddii qofka uu ka yaraado 3 litir inta badan waxay noqotaa in loo raadiyo in dhiig lagu shubo jirka aadanaha waxa uu leeyahay noocyo kala duwan ilaa 4 nooc ayaan ugu caansan ama common ah nooca ugu horeeya oo A ah iyo nooca labaad oo B ah iyo nooca saddexaad oo AB ah iyo O waxaasna waxa loo yaqaanaa blood group markii aad tagto isbitaalka ee laga baarayo dhiigga nuuciisa waxa laga baarayaa blood groupkaaga yacni kooxda dhiigeed ee adiga ku jirto aadanaha qaar waa O qaarna waa A qaarna waa B qaarna waa AB haddaba marka aan gunta u soo degno maxay tahay sababta aan u qaadanay noocyo dhiig ee kala duwan waliba anagoo ah hal aadane human being anagoo ah haddaba su'aashaas jawaabteeda waxa ay noqonaysaa jirkeena waxa uu leeyahay DNA ama loogo DNA waxay ka dhigan tahay loogadaada adiga meel walba oo aad tagto DNA-gaada adiga oo kaliya ayaa leh DNA-gana marka waxa uu ka yimid from mother and father waa aabe iyo hooyo in ka imaaday oo la isku daray marka aan si fiican u sii sharaxno ilmaha markii uu abuurmaayo hooyada waxa laga soo qaadaa 23 chromosome aabahana waxa laga soo qaadaa 23 ee hooyada waxa laga yaabaa dhiigga nooca hooyada in uu yahay O dhiigga nooca aabahan in uu yahay A ama O xataa uu noqon karaa ilmahaasi dhalanay waxa uu noqonayaa mid haysto laba genetic oo kala duwan genetic waxa laba dhaxal oo kala duwan tusaale gabar baa waxay guursanaysaa wiil ajnabi ah oo kale way ka sii fog tahay kan Soomaaliga ah marka aad isguursatiin kan ajnabiga ah sababtoo ah DNA-ga mar waliba oo sii tixmo waa uu sii mar waliba oo sii tixmo waxa ka wada mar waliba oo la sii tarmo adiga cunug tusaale awoowaha saddexaad oo kale DNA-giisa ama qaybta yareeda laga soo qaaday awoowaha saddexaad in qayb yar oo adig laga helo laga yaabaa taasi oo inta badan keenaysa DNA-ga marka la baarayo waxyaabo qarniyo hore ka imaado qofka in lafa markii meel laga helo kala dhaho qofka Afrikaan buu ahaa sababtoo ah wali waxa dambeeya DNA-ga qofkaas oo wuxuu ku dambeeyaa jiilka hadda nool marka waxa qayb weyn ka qaato genetics-ka ama hidaha anaga aan ka soo jeedno ama DNA-gaan ayaa qayb ka qaato marka waa isbedel hidasidaha sidoo kale meeshaas waxa si fiican u fahmi kartaa kalarka way adiga hooyada oo cad adiga xoogaa maarin u tahay taas waxay ka imaanaysaa waa isku barxid waa haddii aan soo qaadano koob caano ah iyo koob kafe ah oo kale haddii aan soo qaadano oo la isku daro way isku barximaysaa waxay ka dhigan tahay 23 chromosome oo aabe ah iyo 23 chromosome oo hooyo ka imaada labada koob ee u kala taagnaan karaan marka haddii aan sii wadno marka oo labada koob markay saas noqdaan koobka saddexaad marka la isku daro labadan koob saddexaad oo caan u badan haddii lagu sii daro mid baa sii qafiif sii noqonaya qafiif oo ugu dambeyn koobkii laga bilaabo sheekada in uu dhamaado ama la midab dooriyo ayaa meesha ka dhacaysa midab doorintaas marka waxay ka imaanaysaa in isbedel dhiigga nuuciisa uu halkaas ka imaado oo qofkii asagoo awoobihiisa afraad ee ahaayo kale isbedelada la isku dardaray waxay noqonaysaa inay qayb ka qaadato dhiigga noocaada insha Allah sharaxaada xoogaa waan ku dheeraaday laakiin in la fahmay ama tusaalooyinka soo qaadan xoogaa in wax laga fahmay wax uun ayaan rajeynaynaa insha Allah maalin wanaagsan ku soo biir janaalka
mahadsanidin asxaabtaadana gaarsii